عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مر دحدنا أدونك وحصو مرتي بقرطوية مسلم هايد بقرطوية داس هايد midii ugu taajirsaneyd uguna maalka iyo hantida badnayd. Haddaba waa kuma seesa ku hantiday maalka iyo hantidaas badan boqortooyadaasi? Jeff Bezos, hantiilaha shirkadda Amazon, inuu yahay ninka ugu hantida badan adduunka, waxaana uu leeyahay hanti gaaraysa $115.6 bilyan, halka ninka ku xiga uu yahay Bill Gates ay hantidiisu ay gaarayso $108 bilyan. Haddaba haddii aad u aragto inay tahay lacag aad u badan, hadda aan kuu sheegay inuusan jirin qofka hanti iyo maal badan. Mansa Musa waxaa lagu qiyaasaa hantidiisa inay ahayd $400 bilyan. Mansa Musa waxa uu ka soo jeedaa qoys boqortooyo oo deganaa dalka xiran ee galbeedka Afrika ee Mali. Walaalkii oo lagu magacaabi jiray Mansa Abubakar ayaa uga tegay boqortooyada, waxaana uu dhashay sanadii 1280kii. markii uu qabtay xilka boqortooyo waxa sii ballaartay boqortooyadiisii. Mansa intii uu hayay boqortooyada waxa ay gaadhay wadamo badan oo kala ah Saxaraha Waqooyiga ilaa Morocco, galbeedkana waxay gaadhay ilaa Atlantika, barigana waxa ay gaadhay ilaa qowmiyadda Hausaha. waxaana xilligaa horumar weyn ay ka gaadhay dhanka ganacsiga, waxaana saldhig u ahayd magaalada Timbuktu. Sidoo kale boqortooyadani intii ay jirtay waxa ay horumar weyn ay ka gaadhay dhanka aqoonta, iyadoo ay aqoon u soo raadsan jireen wadamada kale ee dunida. Mali waxay noqotay bar loogu soo hirto aqoonta. Waxa uu dhisay jaamacado, masaajido, guryo iyo wadooyin. Waqtigii ay jirtay boqortooyadani Mansa Musa waxaa wax lagu kala iibsan jiray dahabka, iyadoo ay dhici jirtay in dahab lagu beddesho cusbo, maadaama ay cusbadu tahay maadooyinka uu jirkeenu noolaan karin la'aanteed. Dhaqaalaha Mali waxa uu ku tiirsanaa dahabka iyo cusbada, heer lagu tilmaamo dahabka Mali inuu u dhigmo kalabar dahabka adduunka. Tani ayaa ka dhigtay Mansa Musa inuu gacanta ku hayo dahabka iyo cusbada adduunka. Safarkii uu Mansa Musa ku tagay Maka ayaa ahaa safarkii ugu yaabka badnaa marka laga hadlayo dhanka ganacsiga. Waxaa qiimo dhac weyn uu ku yimid dahabkii iyo cusbadii. Magaalooyinkii uu sii marayay waxay sanado badan ay la galaadacayeen sicid barar baaxad weyn oo saameyn weyn uu ku yeeshay noloshoodii. Magaalo walba oo sii mara boqorkani waxa uu ku bixinayay dahab tiro iyo cadad aan midna lahayn. Waxaa caado u ahayd inta uu joogo magaalo walba inuu sameeyo casuumaad oo ay ka soo qaybgalayaan faqiiriinta iyo taajiriintaba. Boqorkan Mansa Musa waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa boqortooyadii ugu hantida badnayd ee soo martay adduunka. Safarkii uu ku tegay Maka si uu ugu soo guto waajibaadka Alle waxa uu Mali kala tegay 60,000 oo rag ah, saraakiisha boqortooyadiisa, askartiisii, cunto kariyaashiisii iyo wadayaashii geela. Taariikhyahanadu waxay safarkan ku sheegeen inuu ahaa magaalo guuraysa oo dhex maraysa saxaraha. Mansa Musa boqortooyadiisu waxa ay jirtay 25 sano. Haddaba waa sidee maanta xaalka dalka Mali? Waxay la galaadacaysaa dagaalo iyo gaajo, iyadoo ay kala siman tahay walaalaheeda Afrika.